قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله أيا أجوابي إساقو أبلان قادي عذاب درن إساق إيه إنت الرعذا إدباك شبا. waxay ahayd qiso qadiim ah oo bilaabmatay basharka ka hor kumanaan sano. waxay ahaayeen jiman wejiyo aad u kala gedisan lahaa, waxayna u dhaxeeyeen xaqa iyo baatilka. waana sunnada iyo soo jireenka adduunka ilaa iyo gabagabadiisa. waa waswaas jin kaasoo ka mid ahaan jiray kuwa la xushmeeyo. waxaa qaatay halowga iyo kibirka iyo isla weynida iyo dhaga adayga. wuu caasiyey eebbihii, wuu isweyneeyey, muuna gaaloobay. wuxuu ballan qaaday inuu karaamayn doonin insi alle ka abuuray dhoobo. waa lacnaday allaha weyn, wuxuuna ka dhigay kuwa la fogeeyey ee laga fogeeyey naxariista allaha weyn. wuxuu weydiistay alle in loo kaadiyo ilaa qiyaamada, wuuna u oggolaaday alle midaas. wuxuuna la baxay magaca loo yaqaano ibliis allaciin. tan waa qisadii casaaziil, qisadii wejigii la lacnaday ee ibliis. waqti aanan la aqoon taariikh iyo tirsi ayuu ka abuuray alle duul holaca naarta kaasoo loo yaqaano jin. waxayna ku sugnaayeen dhulkan aynu joogno basharka ka hor qarniyo iyo qarniyo. waxayna ahaayeen kuwo caabudi jiray ilaahay, waxayna lahaan jireen kala dambayn. waxay dhiseen qasriyo aad u dhaadheer, dhulkana waa ay camireen. waxa aad u kordhay awooddoodii iyo badashadoodii, iyagoo waxna cuni waxna cabbi faakahaysanna, ilaa ay rajadii la dheeraatay oo ay hilmaameen wixii loo abuurayba. qaarkoodba qaarkoodii kale ayay dhiiggooda daadiyeen, wayna fasahaadiyeen dhulka iyo wixii kula sugnaaba. waxaa soo baxay jinni loo yaqaana casaaziil. wuxuu ahaa nin xaakim ah oo alle caabudi jiray, waxaana la sheegaaba inuu ahaa kii ugu alle caabudidda badnaa jinka markaas. wuxuu heshiisiiyey labadii kooxood ee isdagaalayay, wuxuuna uga digay cadaabka iyo ciqaabta iyo carada ilaahay subxaanahu jalla jalaaluh. ma aynan ka suulin inay dagaalamaan oo ay dhiiggooda daadiyaan. ilaahay ayaa karaameeyey casaaziil una dhiibay xilka samada adduunka iyo dhulka, wuxuuna noqday mid uga diga qoomkiisii cadaabka allaha weyn subxaanahu jalla wacalaa. waxay sidaas ahaataba wuxuu soo diray alle ciidamo uu casaaziil kow ka yahay oo la dagaalamaya kuwa markaasi gaaloobay ee jinka ka mid ah. way weerareen wayna ka guulaysteen. waxay la dhaceen jiridgeedeed iyo buuraha dhinacyadooda. casaaziil ayaa iscajabiyey isagoo dhahaya, waxaan sameeyey wax aynan cid kala samaynin. allaah ayaa daalacday qalbigiisa, cidnana umuusan muujinin, umana sheegin. waxaa la soo wariyaa in samada la geeyey ibliis oo malaa'igta lagu daray. samada ayuu ku caabudi jiray allah subxaanahu jalla wacalaa. allana waa karaameeyey, wuxuuna ka yeelay mid malaa'igta la safta. muddo dheer kadib markuu xaaladaas ku sugnaa casaaziil, wakhtiga ayaa isbedelee. eebbe ayaa u sheegay isaga iyo malaa'igtaba inuu bashar ka abuuri doono ciid, dhulkana uu dhaxalsiin doono. waxay dhaheen malaa'igtu, ilaahayow ma waxaad dhaxalsiinaysaa dhulka kuu fasahaadiyo dhiiggoodana ku daadin doona? wuxuu ugu jawaabay markaas raxmaanku inaynan iyagu ogeyn waxuu alle og yahay. wuxuu alle gacmihiisa barakaysan ku abuuray aadam calayhi salaam markii uu dhammaystiray abuurkiisa ee uu sawiray. ibliis ayaa ku dul wareegi jiray oo u imaan jiray. kadib waxa uu ogaaday ibliis inuunan ahayn addoon isxukumi kara. wuxuu dhahay ibliis intuu aadam saa u eegay, haddii aadamow laygu kaa sallido waan ku dhumin doonaa, haddii adiga ani laygu kaa sallidana waan ku caasin doonaa. markuu alle dhammaystiray aadam ee uu ruuxdii ku afuufay,
ayuu malaa'igta ku dhahay u sujuuda. Sujuudaasina ogow ma aha sujuud cibaade waa sujuud salaameed ama ixtiraam. wuxuu ahaaday Cazaaziil ama Ibliis mid ka soo horjeedsada amarkii Ilaahay. waxa uuna dhahay isagoo kor u dhawaaqaya, aniga ayaa ka khayr badan, waxaad iga abuurtay naar, waxaanad ka abuurtay dhoobo. Allah ayaa markaasna u cadhooday oo lacnaday kana fogeeyey naxariistiisii waasaca ahayd. kadib markii naxariista Alle laga fogeeyey Ibliis ee uu gaaloobuu gaalka noqday, waxa uu bilaabay inuu guda galo xaasidnimadii iyo cadowtinimadii uu u hayay insiga. Aadam iyo Xawaa Allah waxa uu geliyey jannada, waxa uuna uga digay Ibliis iyo xulafadiisa. saa ay tahay aabaheen Aadam waxa uu ilaaway digidii Ilaahay uga digay ninkaas Ibliis la yiraahdo. Ibliisna waswaasintiisii ayuu bilaabay ilaa markaas aabaheen iyo hooyadeenba laga soo tuuray jannada oo ay sidaas dhulka ku yimaadeen. waxaana halkaas ku bilaabmatay qisadii Ibliis kala lacnaday iyo aabaheen Aadam ama basharkaba. cahdigii koobaad 10 qarni kadib, Aadam aabaheen markii dhulka la keenay, waxa uu bilaabay ninka Ibliis la dhaho inuu dhumiyo ciyaalkii Aadam dhalay. waxaana ugu weynaa wuxuu kala dagaalamayay tawxiidka Ilaahay. ruuxii koobaad uu waswaasiyey Ibliis waxa uu ahaa Qaabiil oo waa kii Haabiil dilay, waxayna taasi u ahayd Ibliis ninka la dhaho farxad aad u weyn. muddo yar kadibna waxaaba bilaabmatay inay dadku sanamyo caabudaan. dad ay ku tuhmayeen inay cilmi lahaayeen intay sanamyo ka sameeyeen inay iyaga markaasi Ilaahay ugu dhawaadaan. Ilaahay ayaa karaameeyey Shiis ibnu Aadam calayhi salaam oo markaasi ka dhigay nebi uga diga qoomkiisa xumaanta iyo fuxshiga, uguna yeedha tawxiidka iyo waxdaaniyadda Ilaahay. Ibliisna muuna noqonin mid joojiya hamazaadkiisii ama waswaaskii uu waswaasinayay dadka. wuxuu iska hor keenay qoomkii Shiis iyo qoomkii ka soo jeeday Qaabiilkii walaalkii dilay, oo markaas hablaha Qaabiil qoomkiisa ay ahaayeen hablo aad u qurqurux badan. waxaana halkaa ka bilaabmatay faxshi iyo alla ka fogaan ay zina ka kow tahay, waxayna ahayd dembigii labaad ee ugu weynaa kadib dilkii Haabiil. ninka Ibliis la dhahaana halkaas waxa uu ku bartay dacfiga bini'aadamka ama basharka. waxa uuna bilaabay inuu ciidankiisii baro si ay iyaguna markaasi dadka ugu dhex baahaan oo ay u faafiyaan faxshigaas iyo alla ka fogaanshahaas. Ibliisna ma uusan ahayn keligii ee waxa la socday kuwa markaasi jinka ka mid ahaa iyo kuwa insiga ka mid ahaa oo uu dhunsaday. kuwan jinka ka mid ahana waa kuwii ka hadhay dagaalkii ay malaa'igtu ku qaaday kuwii ka horreeyey basharka ee jimamka ahaa ee dhulka fisqiga ka buuxiyey. kuwii ka hadhay bay ahaayeen buuraha lala dhacay dhuuntay. waxa uuna fisqiga ay dadka ku dhex abuureen bilaabmay cahdigii Mihlaa'iil, xafiidu Idriis iyo awowgii Nebi Nuux calayhi salaam. waxa uu ahaa Mihlaa'iil markaasi nin jimanka aad u laayay oo kowga siiyo meel kasta oo ay dabadooda geliyaan kaga dabagelayay, markaasina soo qabanayay ilaa ay maradadii iyo kuwii ugu waaweynaaba ka cabsan jireen Mihlaa'iil. waxa uuna samaystay markaasi taaj weyn oo wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee taaj samaysta. waxaana halkaas ugu caddaatay ninka Ibliis la dhaho daciifnimadiisa una la dagaalami karaynin addoommada Ilaahay. ma uunan halkaa ku quusanine fursad ayuu ilaan raadinayay. sannado badan ayaa ka soo wareegtay cahdigii Mihlaa'iil, waxaana bilaabmatay cahdigii Nebi Nuux calayhi salaam. waxa uuna ku waswaasiyey niman markaasi cilmi ay ku tuhmayeen in ay wada dhinteen. markaasna wuxuu kula dardaarmay ninkiis Ibliis la dhaho intuu nin caadi iska soo dhigay qof bashara uu yimaaday dadkii shirayay. wuxuu kula dardaarmay in nimankan cilmiga ay ku tuhmayeen sanamyo ay ka dhigtaan markaasi la sharfo. nimankaasina waxay ahaayeen niman adduunyo ka zaahiday oo ahaa addoommo aad u wanaagsan oo akhlaaq wanaagsanna lahaa. dadkuna markaasi ay ku faani jireen lana ixtiraami jiray oo la weyneyn jiray. Ibliis markuu u yimaaday dadkii ugu waaweynaa markaasi qoomkaas, waxa uu ku dhahay, war sidee baad u dayn karaysaan, aad u ilaawi karaysaan Waddan iyo Suwaacan iyo Yaquuth iyo Nasra oo ahaa dad wanaagsan? haddii aydan ilaawi karaynin dee sanamyo ka sameeya oo markaasi ixtiraama. kuwaasina markaas sanamyo ayay ka sameeyeen oo waxay qaateen dardaarankii Ibliis oo u maleynayeen ka ugu wanaagsan. ugu dambeynna jiilba jiilkii ka sii dambeeyey waxay ku dhaceen dabinkii Ibliis uu la rabay oo ahaa inay tawxiidka dhumiyaane wayba caabudeenba.